waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka macallimiinta iyo ardayda waxaan dhiirigelinayaa madashatan maanta lagu dhiirigelinayo ardayda 1 ilaa 4 kaalmaha hore ka gashay imtixaankii waxaan leeyahay hadday midagtu kali taagan tahay tahar ma goyseen tabantaabada laba gacmood tamar ku yeeshaan waxaan uga socdaa midda taasi ama tuducyadaasi uu halabuurku yiri يعني معلمينtu kaligood ma aysan soo saari kari lahayn arday maanta halkaas lagu sharfo oo lagu maamuuso ma ardayduna kali ahaantood maanta heerkaas ma aysan soo gaari lahayn taasi oo ay ku tusinayso in wada jirka iyo maxay heetooy wada dadaalku uu leeyahay midadal kuwaas oo la dheefsado marka labaad waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa una dhiirigelinayaa gabi ahaan ardayda halkan fadhida waxaan idin leeyahay maanta sharafta tan ay naga mudan yihiin ardayda halkan horteena lagu maamuusaya xaqiiqa ahaan waa mid ay mutaysteen idinkana waa mid la idinka baahan yahay inaad maxay tahay dadaalkeeda iyo howlgalkeeda aad gashaan isla mar ahaantaana aad noqoto mid aad fara badan aad u soo jeedo sidii ninkii carbeed uu lahaa sharafta ma waxaad moodaysaa wax si fudud aad ku heli karto xaqiiqa ahaan sharaftu waa mid aad helayso kadib marka aad gacanta leefto maamuus heli maysid haddii aadan dadaalin hankaaga iyo himilooyinkaagu haddii aysan noqon kuwa aad u soo jeedo kuwa aad u rafaado kuwa aad dadaal fara badan aad geliso xaqiiqa ahaan markaas ayaad gaaraysaa heer lagugu maamuuso laguguna sharfo waxaan si aad iyo aada aan u bogaadinayaa gabi ahaanba ardayda sababta oo ah madashatan maanta bilan ee boqoran ee lagu maamusay ardaydeena kaleeto iyaga la'aantood ma aysan bilnaateen waana mid ay iyagu kaalinta ugu muhiimsan ama doorka ugu muhiimsan ay maxay heetay ku leeyihiin waan dareemi karayaa cadeeda aad fadhidaan waan dareemi karayaa madasha oo xilli dambe bilaabantay hadalkayga waxaan ku soo afmeerayaa تدعيو لها عبد الفتاح محمود هالابوركا oo ay tahay tartan way dunidii inta aan laga tagin fikta sarat ilmaas. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.